Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fiidiyoga waxaan ku eegnaa falanqeynta weeganayna oo ka bilaabayna DXY. DXY abtireenkaas lagu soo socday kadib abtireenkii waa la dhameeyey. Marka imika downtrain baa lagu socdaa la sameyn balse haddana correction haddana balse kale imika waxa lagu jiraa correction yar. Waxaan sugayaa in lasoo dhaco ilaa xaggaasna waa la jebin karaa ilaa halkaasna waa la jebin karaa. Marka DXY waxaan ka sugayaa waxa weeyaan in correction yar impulse kale correction yar kale impulse kale marka downtrain kan imka downtrain kan socdaa weli muu dhamaan marka chance kasta oo ku siiyo downtrain kaasi oo ka faa'iideysan kartaa insha Allah uptrain kani uu dhamaaday halkaas yal wave ayuu ahaa uptrain kaasi uu dhamaaday ka soo bilaabmay ilaa halkaas marka correction kiisii baa socda correction kiisii ayaa socda marka correction kiisa oo ka faa'iideysan doontaa insha Allah ilaa ugu yaraan halka wala jibinayaa weekan Euro USD haddaan nimaano Euro USD waa DXY oo dhanka kale loo jeediyey marka Euro USD waxaan ka sugayaa halkan wuxuu ahaa correction yar buu ahaa impulse correction yar oo kale impulse marka ugu yaraan halka wala jibin karaa marka Euro USD waxaan ka sugayaa iyadana waa uptrend marka chance kasta uptrend oo ay ku siiso Euro USD waad ka faa'iideysan doontaa GBP USD haddaan nimaano GBP USD way kala duwan tahay Euro USD inkastay uptrend tahay laakiin iyada dhayga uptrend dheer baa lagu jiraa marka kani wuxuu ahaa correction impulse correction yar oo kale in yar in lasoo dhacan doonaya kadibna chance kastoo baya ka faa'iideysanaya marka chance kastoo baya Euro GBP USD waad ka faa'iideysan doontaa yar sugin hoos u soo yar dhaco marka kadib correction yar impulse correction kale impulse marka correction kasta ku sameeyo suuqa waad ka faa'iideysan kartaa correction kasta ku sameeyo suuqana waad ka faa'iideysan doontaa insha Allah marka GBP USD ilaa halkee baa la gaari karaa ugu yaraan ilaa halka waa la jebin karaa ilaa halkaasna waa la gaari karaa marka ilaa intaas chance kasta ku siiyo ilaa xaggaas waad ka faa'iideysan doontaa insha Allah chance kasta ku siiyo faa'iideysan doontaa NZD USD iyadoo waxaan ka sugayaa in yar inta hoos loo soo yar dhaco kadibna impulse correction marka ilaa halkee la jebin karaa ilaa horta ugu yaraan halkaas waa la jebin karaa ilaa halkaas waa la jebin karaa ilaa halkaas waa la jebin karaa marka ilaa halka waa la jebin karaa marka chance kastoo baya waad ka faa'iideysan doontaa insha Allah chance kastoo baya waad ka faa'iideysan doontaa inka correction yar bay ku jirtaa waxaan doonayaa in yar in hoos loo soo dhaco marka chance kastoo baya waad ka faa'iideysan doontaa insha Allah marka NZD USD ilaa halkee baa la tegi karaa ugu yaraan halkaas waa la jebin karaa ilaa halkaas waa la jebin karaa ilaa meelahaas way iman kartaa marka NZD USD waxaan ka sugayaa waa buy AUD USD haddaan nimaano AUD USD iyadoo impulse baa lagu jiraa chance kani halkan buu kasoo bilaabmay impulsigii baa weli socda ilaa meelaha laga yaabo ku dhamaan karaa marka waxaan sugayaa anigu correction kiisa ayaan sugaya waa impulsigani dhamaad ayuu dhow yahay dhamaad ayuu dhow yahay waxaan ka faa'iideysan doonaa insha Allah waxaa dhahdaa correctionkaas marka correctionka dheer ee soo socda correctionkaas ayaan insha Allah ka faa'iideysan doonaa marka ugu yaraan horta halkaas waa la jebin karaa kadib ayaan selka dheer ee soo socda insha Allah ka faa'iideysanaya marka AUD USD yada in yar kor waa loo socon karaa correction oo kale haddana kor waa loo socon karaa marka waxaa la bilaabi karaa downtrain marka selkaasan doonayaa inaan ka faa'iideysto weli uptrain kani muu dhamaan impulsiga halka ka bilaabmay ilaa meelaha laga yaabaa u tegi karaa ugu yaraan halkaasna waa la jebin karaa marka ka taxadir haddii aad buy u galaysid short term kuu noqdo USD CHF yada USD CHF waxaa la galay correction marka waxaa la sameeyey impulse haddana correction haddana impulse imika waxaan ka sugayaa in correction lasoo yar galo marka iyadoo waxaa la sameyn karaa impulse correction yar oo kale haddana impulse ayaa la sameyn karaa kadib baa kor la aadi karaa waxaa kaloo dhici karta in la sameeyo impulse correction yar oo kale haddana impulse marka
down trainkan imka bilaamaya waad ka faa'iideysan doontaa. Haddii uu kor isku sii jabiyana halkaa uu sii jabiyana up trainkaaga waa ka daydayan doontaa insha allah. USD Jabayada waxaan ka sugayaa kani waxa weeyaan impulse correction, impulse kale ayaan ka sugayaa. Marka ugu yaraan halkan waa la jebin karaa, ugu yaraan halkaas waa la jebin karaa. Marka iyada waxaan ka sugayaa in halkaa la jebiyo ilaa meelahana waa lasoo iman karaa. Marka iyada waxaan ka sugayaa waxa weeyaan dhaqaaq dheer oo down train ah. Dhaqaaq kasta oo chance kasta oo down train ah waad ka faa'iideysan doontaa insha allah. chance kasta oo down train ah waad ka faa'iideysan doontaa insha allah. Marka iyada waxaan ka sugayaa waxa weeyaan waa down train. chance kasta oo down waad ka faa'iideysan doontaa. dahabka waxaan ka sugayaa iyada waxaan ka sugayaa correction impulse weeyaan kaasi, correction haddana impulse haddana correction ilaa impulse. Marka ugu yaraan ilaa halkii baa la tegi karaa, ilaa halkaa sare waa la tegi karaa waana la jebin karaa. Ilaa xaggaa sare waa la tegi karaa waana la jebin karaa. ugu yaraan horta halkaa waa la jebinayaa ilaa halkaasna waa la gaari karaa, ilaa halkaasna waa la gaari karaa. Marka chance kasta oo up train ah waan ka faa'iideysanaya, chance kasta oo up train ah insha allah waan ka faa'iideysanaya. Marka falanqayntii weekend intaasaan ku joojinaya, waan yar dul cararay. Marka DXY daas oo kale waxaan ka sugayaa waa down train, Euro USD up train, GBP USD up train, NZD USD up train, AUD USD up train, USD CHF saas oo kale iyadoo down train way aadi kartaa, up train way aadi kartaa. USD CHF down train, qaybkana waa up train.